Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaanu diyaarinaynaa Statement of Comprehension Income. Statement of Comprehension Income waxaa loo publish gareeyaa external userska si sawir looga qaato caafimaad qabka shirkadda, in ay profit ku jirto iyo in ay loss ku jirto. Si aynu u diyaarino income statement-ka, waxaa waajib ah in aynu ku noqonno trial balance-geenii aynu soo diyaarinay ee example-kii George. Sales ayaa layna weydiiyey. Trial balance-geenii saleska inoo yaalaa wuxuu noqonayaa 12,000. 12,000 ayaynu geyn doonaa income statement-keena. Saleskii imika waynu soo dhignay income statement-keena. Si aynu u dhammaystirno financial income statement-keena, waxaan saleska ka jari doonaa cost-kii alaabtii lasoo iibsaday. Opening inventory-ga oo ah alaabtii hore aynu haysanay waxaa loo geyn doonaa purchase-ka alaabtii lasoo iibsaday. Waxaa laga sii jari doonaa closing inventory-ga oo ah alaabtii lagu xidhay store-ka ee kusoo hadhay ee aan la iibsanin. Opening inventory-geenu waa eber, waayo wax inventory-a amba alaaboo hore inagu sii taalay store-ka may jirin. Purchase-kana waxaynu ka eegi doonaa alaabtii aynu soo iibsanay trial balance-geena. Trial balance-ga haddaynu u nimaadno, waxaa inoo yaalaa purchase qiimihiisu yahay 12,000. Waxaynu geyn doonaa income statement-keena. Purchase oo inoola mid ah 12,000. Waxaa laga sii jari doonaa intaa closing inventory-geenii oo ahaa 7,000 oo laga jari doono 12,000 ee purchase-ka ah. Cost of salesku markaa wuxuu noqonayaa 5,000 oo laga jaray saleska oo ah 12,000 si ay nagu soo baxdo gross profit. Haddii aynu kala jarno, gross profit-keenu wuxuu soo baxayaa 7,000. 7,000 waxa weeyaan profit-kan ka helay alaabtan iibinay. Laakiin waxaa dhici karta in other income jiri karo sida service income, laakiin imika wax other income ma jiro, markaa waxaynu soo qaadanaynaa eber inay tahay. Haddii uu jiri lahaa other income, waa lagu dari lahaa gross profit-keena oo plus ba iman lahayd. Waxaa laga jari doonaa expenses-ka jira. Imika waxaa halkaa inaga muuqda inuu jiro rent expenses ah. Markaa waxaynu ka soo eegi doonaa oo dib ugu noqoni trial balance-geenii inta uu inoo leegyahay rent expenses-keena. Trial balance-geena waxaa inoo yaalaa rent expenses ah 450. Waxaynu geyn doonaa income statement-keena si aynu uga jarno gross profit-keenii. 450 ayaa laga jari doonaa gross profit-keena. Halkaa waxay nooga soo bixi doontaa profit for the year amba net profit oo noqonaysa 6,550. Halkaa waxay nagu dhammaaday casharkeenii aynu ku diyaarinaynay Statement of Comprehension Income amba income statement-ka sida loo diyaariyo. Casharka ku xiga waxaynu ku soo qaadan doonaa sida loo diyaariyo Statement of Financial Position